madaxda waan lafta waxaan ku yiri maxaa igu qasbay in aad ka waantoobi weysaan oo ka caqliyeysan weydaan xabashida waxay inagu ciyaarayso wuxuu yiri Soomaali arag yiri Soomaali waxay noo geliyay maalin kasta inay dhiibayso markii hore reer geesana dhiibi jiray hadda nin kasta oo dhan waa lagu tartamaya oo maxay ahayd galmudug ku joogay iyo ku dawladda centraalka ayaa ku tartamayaan qalbi dhagax mid kasta inuu wajax xabasho ka raadsan marka Soomaali ma jirto ugu ninkaas waa mid loogu talagalay mid ayade waxaan ku tusayaa qalbi dhagax markii laga qaaday meesha oo la jajabiyay oo la dilay oo wadankii uu soo halgamay oo intaasoo jeer u dhaawacmay waxa lagu sameeyay la silciyay xagga markii la geeyay wadankaada imaatay baa la yiri meel fiican baa la dajiyay dhakhtarii daawo xiro dhan baa la siiyay waxa loo tusayaa annaga ka xignaa Soomaalida kale la Soomaaliya la kala qaybiyo oo qabiil loo kala qaybiyo laga maadkaan karo ingiriiska baa saamay maxay talyaaniga baa saamay faransiiska baa saamay hatta Ethiopian kana way sameeyaan hayla slaas uu sameeyay markii hore oo markay oranayaan maxay u shaada ninkaad u dhiiban karta ka qaadan karta ayaa loo dhiibtaa oo ingiriiska uu yiri mas ingiriiska doorta mas maxayla doorta waakay dhaheen intuu lacag siiyo hoosta ka galay saadiinta oo dhanba odayaasha ay dhaheen u shaada ninkaad ka qaadan karta loo dhiibtaa muhiimadaan ku soo wado waxaa la ii sheegay maalin dhaweyta nin oona la faha oo ay qabteen qolyahan Hargeysa ay qabteen hadda ka hor isagoo lugaha laga soo xiran gacmaha ka xiran la soo dilay soo baabiya ayaa loo keenay oo indhahana ka xiran tago jaale markii saa lagu soo dhibi xabashii saraakiish ahayeen ee ku qayliyeen nimanka keeneen aydan ka furan si degdeg uga furayeen maxaa sir u yeeshay ninkan markii laga furfuray waxa dhan lacag fara badan waa loo dhiibay nin kale oo af Soomaali yaqaanana waa lagu daray wadankaadi baa imaatay oo xor ah dib maanta kugu dambaysa oo waxa doontana soo shopping soo samayso mar dambe isku imaan ninkii sidii baa la yeelay markii dambe Arsabaa la geeyay hodal baa la dajiyay kor kulli way ka ilaashanayaan laakiin xor baa tahay baa wadankaadi imaatay macnaha waxa weeyaan Soomaalidii baa la kala dilayaa oo kuwa kana loo tusay inay cadow yihiin kuwa iyagana inay xabiib yihiin oo iyaga ay dadka ay maartay qaran ay isku yihiin walaal yihiin marka horta mu'amarada waa wax aad u ballaaran qisa hadda dhow ka sheekaysanayay adiga ninka saasoo kale waa nafkaas sargaalka oo intii lagu jajabiyay oo lagu garaacay galmudug maxay ahayd markii dambana soo sargaal imaaday galmudug operation maxay ahayd saraakiisha fulnays oo kamid yahay loo dhiibay xabashidii ma gartalkii xabashida way qaaday way dhayday way baanisay dhaqaalana waa la siiyay sargaalna waa laga dhigay ka wadanka difaac cadow marka wuxuu arkay kaliya walaalihii Soomaalida oo galbeed waxay ku sameeyeen baa kuwaana sheeko kala loo sheegay kun sheeko kala loo sheegay reer adiga marka dhalatay ilaa Soomaali baa kala nahay raas markay isku haysteen reedin xaaji iyo reer samatar hubka kuwana waysis xabashida kuwana waysis xabashida waa dad hoos oo jif hoos isku ah 120 qof hal maalin iska dileen wada garsama Soomaali inay ka waantowda taa iyada waa la leeyahay aqligoodii baa meesha noqday. The power of information, it's here with you. Garissa Times Tube channel brings you updated news as it happens. Whatever you just need like is just click the like button, then give us a subscription at the bell sign. Then from there, the story are gonna be flowing in as we update you day to day.